السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن كسو دوادا درس عصب أو كمد دروستا كبحا دوكسيل 24.com درسيغاني ودرسيغي لباد قيبتيسي لباد وحانا إن شاء الله تعالى كقادنا الحرف في مواضع مختلفة من الكلمة حرفك أو كتشرا ميلك لدوان كلمة كتشرا حرف مركو ودعو kelmadda bilowgeeda iyo marka uu dhaxda dhaco iyo marka uu dhamaadka dhaco qaybtii hore waxaan kaga soo hadalnay alif ilaa jim haddana waxaan ka bilaabaynaa daal xarfi daal iyo daal iyo raa iyo za ayaan ka bilaabaynaa ilaa ya ayaan ku qaadanaynaa darsigan insha allahu tacaala saad u jeedaan xarafka daalka markii la qoro saasuu u yaalaa wuxuuna ka mid yahay 6 xaraf oon qaadan doono oo maaragtay xagga hore lagaga darsamo laakiin xagga dambe aanan waxba ka raacin wax xaraf kama raaci karo xagga dambe daalka saan u jeedno oon insaan arki doono oon ku arki doono casharkan afartan xarafba waxa weeyaan 6daasi ka mid yihiin waxa weeyaan marka daal markaan qoro markuu yahay daal oo fi awwal kalima kelmadda bilowgeeda daalka markuu ku jiro saasuu ekaanaya مثلا سان كله ديك هدان قريو كله وكا سادرتيد ديك يأذو كما ديك كرتو دالكا مركا دالكا دي لقرايو وحويان ساسا لو قريا مركو هوريسا قدالنا وحوا كما راعي كرو صلاحانو كرو ساسو دبا دعيا ان ارغنو دالكا او كجرا في وسط الكلمة ساسو نقونيا دالكو مركو وسط الكلمة كجرو ساسو نقونيا gadaal lagama raaci karo gadaal maartay waxba kama raaci karo waa daalkiyo ku jira dhaxda kelmadda dhaxda kaga jira fi wasat kalima daalka oo ku jira ugu dambeeya sida noqon karaa wuxuu noqon karaa saasoo noqon karaana daal oo kaligiisa u taagan ayuu noqon karaa oo hadduu ka horeeyo 6 xaraf maartay gadaal laga raaci karin hadduu daalku ku xigo saas loo qorayaa saas ayaa loo qorayaa daalkuna waa la mid daalku markuu yahay fi awwal kalima saasuu noqonayaa waxba gadaalka ma raaci karo dhaxda markuu ku jirana saasuu noqonayaa waa isku mid way isku yihiin marka ugu dambeeyana sidana uu noqon karaa labada uu noqon karaa waxa la mid ah raacda oo iyadana maartay xagga dambe laga raacin raacda gadaal laga maraaci karo rajul fi rajim kuma dhigi karo rajul salaha kale raacda saasay noqonaysaa laguma darsami karo xagga dambe laga maraaci karo عفوا halkan raacda oo dhaxda ku jirta saasay noqonaysaa waka xagga hore waa laga darsamay xagga dambana laga maraacin ay raacda oo u dambaysa sida noqon kartaa sida way noqon kartaa za xarf za zanaan eegno zaadu waa waxay la mid tahay raacda saas oo kale markii ugu horeyso kelmadda ugu horeyso saas loo qorayaa hadday dhaxda ku jirtana saas loo qorayaa hadday ugu dambeysana saasay noqon kartaa saasna noqon kartaa 6 xaraf oo ah alif iyo daal iyo daal iyo raa iyo za iyo waaw oo inoo imaan doono 6daasba xagga hore waa laga raaci karaa laakiin xagga dambe xaraf kama raaci karo laguma dhejin karo salaano kale waxaan qaadanaynaa siinka ayaan arkaynaa siinku markuu yahay keligii markuu yahay saas loo qoraa markuu fi awwal kalima noqdo siinku waxa weeyaan xagga dambe ganta dambe way fidaysaa saas loo qorayaa siin fi awwal kalima siinkii oo dhaxda ku jira xagga hore waa laga raaci karaa siinka xagga dambe labada dhanba waxba laga dari karaa okay siin markuu ugu dambeeyo sidan waaye saasuu noqonayaa waxay isku mid yihiin shinka
شين كيسكو مديهين شين في أول الكلمة شينكو كلمة بلو كجرة شينكا أو لحظة كجرة شين أو كجرة رمات كجرة وحالا ميدا صادكونا سيدو كالي هاويان ويفيديسا قنتدن لابن ويفيديسا اوكي إلكتوسن أيا وبحيا تسالهانو كالي halkana labada dhanba saadka waa laga darsami karaa marka saadka oo dhexda ku jira saad oo dhamaad ah waxa la mid ah daadka oo bilow ah daad oo dhex ku jira iyo daad oo dhamaad ku jira waxaan eegaynaa fa'da sidoo kale markii ugu horeyso saasi u egtahay markay dhexda ku jirtana waxa weeyaan labada dhanba maaragtay waa lagaga biiri karaa fa'da oo dhamaada saasay u egtahay waxaa la mid ah qaafka uu ogyahay isaguna fa'da uu ogyahay qaafku saasuu noqonayaa markuu bilow yahay fi awal kalima qaafka oo ku jira dhexda saasuu ogyahay qaaf fi aakhir الكلمة qaaf oo ku jira kelmadda aakhirkeeda kaafka markuu yahay bilow yahay saasuu noqonayaa markuu kaafku dhexda ku jiro waa caynkaas okay kaafku markuu dhamaadka yahay sidaas loo qoraa sidaas ayaa loo qoraa laamku markuu bilow yahay waa saas laamku markuu dhexda ku jiro waa caynkaas laamku marka uu ugu dambeeyo qaabkaas ayuu u ekaanayaa mim xaraf kasta markii xarafka hadduu sadarka ka dego oo xaraf kale lagu darayo waxa weeyaan wuu toosisaa wixii sadarka ka dego dhan waa la toosinayaa saa darteed mim oo kelmadda bilowgeeda ah mim oo dhexda ku jira mim oo dhammaad ah saasuu u ekaanaya okay nuun oo bilow ah nuun oo dhex ku jira nuun oo dhammaad ku jira waxaa la mid ah waaw waxbaa gadaal lagama dari karo waa 6 xaraf uu ka mid yahay waaw oo dhex ku jira okay waaw oo ugu dambeeya saasuu ahaan karaa saana u ahaan karaa haddii 6 xaraf mid hadduu ka dambeeyo saasuu ekaanaya waxaan eegno ha'du marka ay bilowga tahay saasay og tahay waa caynkaas ha'du markay dhexda ku jirto waa qaabkaasay og tahay ha'du dhammaada iyaduna saas weeyaan saasna noqon kartaa ha'da oo dhammaada labadaa noocba way noqon kartaa waxay ku xiran tahay xarafka ay ku xigto xarafka ay ha'du ku xigto ee ka horeeya hadduu yahay xaraf gadaal lagaga biiro waa lagu dhejinayaa sidana loo qorayaa hadday tahay 6 xaraf in soo sheegnayna saasaa loo qorayaa hada cashirkan marka waa aad iyo aad buu muhiim u yahay markii aad kelmadda akhrinayso xarafkii haddii aad mim saa ugu taqaanay ood u aqoonin mim sidan ah way kugu adkaanaysaa inaad akhriso marka waa inaad garataa xaraf kasta meesha uu kelmadda kaga jiro qaabka uu egyahay muuqaalkiisa iyo dhawaaqiisaba dhawaaqiyo dhigaalba xarafka inaad qaybto aad iyo aad bay muhiim u tahay waad mahadsantihiin cashirkan ha la qoro ha lagu celceliyo si aan maaragtay waxaan ku daraynaa oon ilownay raalli ahada ya'da
marka ay tahay ugu bilowga ay tahay saasa loo qoraa ya-da oo dhexda ku jirta idan saasa loo qoraa ya-da oo dhammaadana saasa loo qoraa waqtaas dhammaan cashirkan haddii aan si fiican u dhuuxno cashirkan iyo cashirkii ka horreeyay labadaas haddaan si fiican u dhuuxno oon qorno waxa weeyaan waan qaybeynaa si fiican aan u baranaynaa xaraf kasta sida uu og yahay kelmadda dhexdeeda waad mahadsantihiin baaraka allahu fiikum